war degdega warar naga soo gaaraya deegaanka Daynuunaya ee gobolka Koonfur Galbeed ayaa tibaaxaya in saakay weerar ay ku soo qaadeen deegaankaasi dagaalyahaniinta Khawaarijda Al-Shabaab weerarkan oo ay u qorsheeyeen inay si gaadma ku galaan deegaankaas ayay ka warhaleen ciidamada dawladda federaalka oo halkaasi heegan ku ahaa isna ka warqabaynay soo socdaan jabkii ugu weynaa ayaa gaaray shabaab oo meedadkoodii ayaa maanta Baydhabo iyo Daynuunaya waran waxaana la sheegayaa in dagaalyahano 60 kor u dhaafaya laga dilay shabaab waxa dagaalyahaniinta ku jira hogaamiyihii iyaga watay oo ajnabi ahaa weerarkan oo islahaayeen sidii deegaanka aadan yabaal oo kale ayaad ku qabsanaysaan misay saanadii ciidan ahaan xoog isu dhiseen ayaa laga guuleystay gacantana lagu dhigay waxay noqdeen wax la dilo wax firxada iyo wax nolosha lagu qabto ciidamada gobolka Koonfur Galbeed ayaa toddobaadadii u dambeeyay heegan ugu jiray sidii ay weerar ugu qaadi lahaayeen shabaab ciidankan iyagoo diyaar misna saldhigyadoodii fadhiya ayay soo galeen balse shabaab madarkaysaano waxa ka gaadhay hoobiye qabta dadka maanta ku nool deegaanada Daynuunaya iyo Baydhabo ayaa meedadkooda sawirro ku dulgalaya misna ku duldhaantaynaya waxayna taasi guul hordhaca u tahay guulaha ciidamada dawladda federaalku ka gaarayaan gacan ku dhigaya qabashada shabaab wixii wareer ka soo kordha halkan ayay idin kala soconaysaan